وبيضة الكيكة تكون الفنيلة يهبيكي انت ما يفيلي وانت ما بغيري بقولا انت بغيركم بيكي wejigiisa iyo qaabkiisa u muuqda carruurta ayay Soomaalidu ugu yeereen doolli balse waddankiisa waxa uu ka yahay diamond ay adag tahay in sawir la galo ayato emotional tanshunku miyaayima tanshunku ku soo dhawaada qisada ka dambaysa socaan bixida Grand B dhibkii uu kala kulmay takoor lagu sameeyay gudaha waddankiisa balse ugu dambeyn uu ka guuleystay waxa sababay in ninkan Soomaalidu aad u soo hadal qaado iyo sidoo kale cudurka ku dhacay waa nuucma waxaan idin soo gudbin doona barnaamijkan xiisaha badan anigoo saaxiibkeen Cabdilaahi Daacad ah marka koowaad daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijkan like saarto share garayso sidoo kalena aad page-kayga Facebook ee Cabdilaahi Daacad soo follow garayso magaciisu waa Musa Sadiana Kaba waxaana uu caan ka yahay gudaha waddankiisa iyadoo oo sidoo kale loo yaqaano Grand B kuma eka kaliya waddanka uu ka soo jeedo ee Guinea inuu caan ka noqdo waxaana sidoo kale uu si degdeg ah caan uga noqday adduunka oo dhan waxaana uu ku dhashay magaalo lagu magacaabo Sangiana Nabaya oo ku taala gudaha waddankiisa waa fanaan iyo jilaa sidoo kale ah heer qaaradeed waxaana uu ka tirsan yahay fanaaniinta loogu jecel yahay gudaha waddanka Guinea dad badan waxay aaminsan yihiin in ninkani yahay mid kamid ah kuwa ugu caansan adduunka oo dhan waana sababta keentay inaan barnaamijkan ka samayno sidoo kalena ay dad badan aad u hadalhayaan waxa uu soo maray heerar kala duwan ka hor inta uusan caan noqon taas oo sababtay xitaa dhibaatooyin badan iyo faquuq lagu sameeyay intii la xiriirtay socaan bixidiisa iyadoo ay jireen caqabado badan oo uu kala kulmay nolosha inkastoo alfanan Grand B ugu dambeyn uu ka guuleystay dhib kasta oo nolosha ka soo maray waxa uu ku dhashay cudur lagu magacaabo progeria kaas oo ah cudur la xiriira arrimaha koroonshaha oo sidoo kale ah cudur ku soo bilowday yaraantiisii iyadoo oo sidoo kale taasi ay sababtay in dad badan la yaabaan muuqaalkiisa u eg carruurta gaabnida iyo sidoo kale codka balse markii uu ku soo hor istaago wejigiisu uu yahay qof aad u weyn muuqaalkiisa cajiibka ah ayaa u horseeday inuu dunida oo dhan saameyn ku yeesho dad badanna ay noqdaan kuwa ka codsada qaarkood inay sawirro la golaan waxaa jira fanaaniin waaweyn ciyaartoy caan ah uu ka mid yahay Paul Pogba iyo sidoo kale xidiga kale ee lagu magacaabo Naby Keita oo iyagu waddankiisa ka soo jeeda asal ahaan ay sidoo kale ku qiimeeyeen la gelidda sawirro iyo sidoo kale fanaanadahooda oo ay sidoo kale kula muujiyeen inay aad xushmad ugu hayaan marka la eego socaan bixidiisa iyo saameynta baraha bulshada ee adduunka oo dhan uu ku yeeshay Sidiki Diabate waa shakhsiga koowaad ee saameynta ku leh kaasoo qayb ka qaaday socaan bixidda Grand B iyo sidoo kale in saameynta intaan la eg uu yeesho waxaana sidoo kale la dhihi karaa haddii uusan ahayn shakhsiga koowaad waa kan labaad ee saameynta Grand B wax badan ku lahaa dad badan oo Soomaaliyeed waxay arkeen kaliya bilowga bilahan ugu horreynba bishan gabagabada ah ee August waxaana baraha bulshada qabsaday alfanaan doolli oo ay dad badan ugu yeerayaan fanaankii cajiibka ahaa fanaankii doolliga ahaa inta badan Soomaalida oo in ay magac ku bixiyaan aanayba meel dheer ka jirin ayaa durba la soo booday magaca doolli oo ay Grand B u bixiyeen balse waxa ay moog yihiin in waddankiisa uu ka yahay diamond sidoo kalena ciyaarihii qaramada qaaradda Afrika ee lagu qabtay waddanka Masar uu isagu waddankiisa ku matalayay ka qaybgalayaasha taas oo ah heer caalami gabadha uu la sawiran yahay waxa ay noqotay mid aad u soo cusboonaysiisay hadalhayntiisa dunida oo dhan maadaama dad badan ay sheegeen inuu sariir la wadaagay taasina ay sababtay in caafimaad darro soo wajahday awgeed loo dhigay isbitaal balse Grand B oo ay sidoo kale kula jirto muuqaalkan ayaa iyadu waxa ay sheegeen isaga iyo gabadhaba in waxaas yihiin been abuur balse ay yihiin dad saaxiibo ah waxaana sidoo kale noloshoodu tahay mid xitaa la isku xanto in xiriir weyn oo soo jireen uu muddo dheer ka dhaxeeyay waxa uu qandaraas la galay shirkad samaysa filimada oo laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana sidoo kale 3 filim uu ka soo muuqan doona kuwaas oo heer sare waxaana taageerayaashiisa uu gudaha waddankiisa ugu qabtaa inta badan bandhigyo cajiib ah bandhigyada Grand B ugu waxa ka soo qayb gala dad aan xitaa waddankiisa u dhalan taageerada uu haysto iyo sidoo kale dadka uu helay intaba qisada socaan bixidda noloshiisa waxa uu la kulmay caqabado badan inta uusan caan noqon ka hor waxaana sidoo kale uu jiray takoor ka dhan ah noloshiisa iyo qaabka uu u samaysan yahay dad badan ayaana qaarkood ku sheegay inuu yahay qof aan bini aadam ahayn inta uusan noqon saameynta hadda shakhsiga leh ee Grand B-ga aad taqaanaan ama alfanaan doolliga aad aragtaan
qisada ka hor alfanaan dooli dad badan waxay u haysteen qaarkood xitaa inuu yahay qof jinni ah, taas oo sababtay in marar badan uu nolosha ku cidloobo, murugo badanna ay soo wajahdo. balse ugu dambayn waxa uu noqday qof ka guulaystay wax kasta oo nolosha ahaa, sidoo kalena gaaray heerka maanta uu taagan yahay. Granny B ku darso waa qofka ugu caansan adduunka sida imika la dhihi karo, waxaana uu sidaas ku noqday. waa shakhsi haddii aad aragto aragtidiisa aysan marnaba ilaabi doonin qalbigaaga iyo qulubtaada, taasoo sababtay 10 sano kadib markaad aragto inuu kugu soo dhacayo isla isagii. waddan kasta uu gaaro waxa uu ka noqdaa mid saamayn ku leh. gudaha waddanka Soomaaliya wax ka yar 48 saacadood ayay Soomaalidu aad u hadal haysaa, balse Soomaalidu waxay kaga duwan tahay adduunyada oo kale. waxa ay ku dareen gabar, isla markiiba waxay sidoo kale sheegeen xaalad caafimaad darro ay hayso, isbitaalna la dhigay. balse Granny B waxaaba uu gaaray heer uu Soomaalida u jawaabay iyo dadka kale ee sidaas qaldan u hadlay, waxaana uu sheegay in waxaas yihiin been abuur. isbitaalka la dhigayna ay ahayd xaalad caafimaad darro oo kol hore soo wajahday, balse sawirka uusan imika ahayn. Granny B waxaa inta badan qiimeeya, sharfa, sawirro ku maamuusa gudaha waddankiisa madaxda, dadka caanka ah iyo fanaaniinta kale. ninkan waa fanaan iyo jilaa, waxaana sidoo kale soo caanbixidiisa inta badan la dhihi karaa xitaa qayb kale oo ka mid ah isaga ayaa si weyn uga qayb qaatay in dunida oo dhan ay barato, sababtoo waxa uu soo bandhigi jiray barnaamijyo cajiib ah oo ay dadku aad u jeclaystaan. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan oo aan kaga hadlayay nolosha iyo sidoo kale qisada alfanaan Granny B ama alfanaan dooli sida adootaba u dhigay. waa sida ay dadka aan barnaamijkan u sheegayo ee Soomaalida u fahmi karaan. intaan barnaamijkan lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo, balse waxaan idinka codsanayaa inaad videogan like saarto, share garayso aad saaxiibada la wadaagto.